waxaa maanta magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Ciise weyn loogu soo dhaweeyay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Somaliland Dr. Saleban Ciise Axmed Xaglo-toosiye iyadoo wasiirka laga hortagay meel hilaadii 5 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Buuhoodle halkaas oo ay ka soo galbiyeen boqolaal gaadiid iyo dad ah soo dhaweyn ka bacdi waxa wasiirka loo soo galbiyay qasriga uu ka degan yahay magaalada Buuhoodle isagoo socdaal dheer oo luga ku soo dhexmaray bartamaha wadada halbowlaha dhex marta magaalada Buuhoodle kadib markii uu soo gaaray wasiirku qasriga uu ka degan yahay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Ciise waxa soo buux dhaafiyay kumanaan kamid ah kuwaas oo wajigooda laga dheehanayay farxad iyo reereen ku aadan soo dhaweynta wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland wasiirka ayaa shacabkii ka qayb qaadanaya soo dhaweynta uga qudbaday fagaaraha hore Buuhoodle isagoo isla markaasna u sheegay inuu wado horumar dhinacyada caafimaadka iyo waliba gaadiidka nooca loo yaqaan gurmadka degdega ee ambulance-ka عشان ما الله مغلينا آديات باندين سلامة يا آديات باندين سلامة يا آديات باندين معبسنتين سيدا دي سو دويسن waxaanu imid magaaladii baan imid dadkeygii baan u imid waxaan wadaa oo aan ka shaqeynayaa nabadda iyo horumarka deegaanka Buuhoodle magaaladani iyo deegaanka ku wareegsani waxay ka hareen wadanka intiisa kale dib ay u dhaceen sidii aad ogeydeen mar walba horumarka iyo wanaagga deegaanka baan lagu jeclahay waxaan wadnaa mashaariic badan oo dhismayaal ah ambalaaskii ugu horreeyey Buuhoodle wanaga u wadna isbitaalka Buuhoodle magaalada nabadgelyadeeduna waa muqaddas shucuurta iyo dareenka shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa maanta ka duwanaa dareenadii hore waxaana wajigooda laga dheehanayay farxad iyo reereen ku aadan imaantika wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Somaliland waana markii ugu horeysay ee wasiirka socda xukuumadda Somaliland uu soo gaadho magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Ciise socdaalka wasiirka ayaa imaanaya xilli wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Saleban Ciise Axmed Xaglo-toosiye uu socdaal ugu guurgalay xaaladda caafimaad ee 6 gobol iyo degmooyinka Somaliland uu ku mareeyay Najiib Cabdiweli Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal Buuhoodle